inkastoo yara sabaynay dhaqankiina socon gaari haddana soo kabanayo soo noolaa hidii قدر مي قبري وردا أفقد وقاد نودي وانقصنا قصل كاغان ومالي قبانيا أرضها دونك هدن غيلة برقم ماذا شعيل قد ميسينيا أرماذا بدوبي مبايا خيرا ليغا ساقران الليرا دقيل قنطة أي قليسا الله قبصدا أرضها دونك هدن غيلة برقم ماذا شعيل قد ميسينيا أرماذا بدوبي مبايا خيرا ليغا ساقران بسم الله waxaan soo nimid madal qurux badan madal aroos xafladda waxaan la qaybsanaynaa walaaleen caawa ku aqal galaya degmada Jiriman miyigeeda una dhow deegaanka Booc caruusku waxa weeye daa magaciisa ay sheego Axmed Nuur Jaamac Umar saabka caruusadana waxa weeye Xaawo Cabdiraxmaan Maxamuud haddana waxaan rabaa inaan kalmadooda siiyo ehelka wiilkay gabadha oo raba kalmadooda inay ka dhacaan lana qaybsadaan farxadda carruurtooda caawa halkan ku aqalgelaya Ali Saciid Cabdinuur waxaan rabaa inaan hambalyo u diro mucaashaqiinta caaway arooskooda uu dhacay Axmed Nuur Jaamac Umar iyo Xaawa Cabdiraxmaan Maxamuud aad iyo aad baan waxaan u leeyahay farxadiina Allah idin hagaajiyo mucaashaqiintan waa adduunka waxaa jira qaab badan baa xilliyada arooska iyo timeka iyo loogu aadsadaa qolyahan westernka ay la socdaan barumaynayaayo maanta kale maalinta jacaylka oo la baxeen marka waxaan leenahay Axmed Nuur iyo Xaawo hambalyo arooskiina Ilaahay ka dhigo arooskii raaga farxad iyo caano wiil iyo caano aad iyo aad baan dhammaantiin salaamayaa caawa gaafku waa furan yahay qof walba bishaaradaada barnaamijka u soo saar salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa waxaa dheer weli ehelkii baan ku jirnaa Cabdirashiid Abshir Cumar baan u yeerayaa markan hadda sacabka si fiican u nooleeya laba gabdhood baa maqlay in barnaamij la siiyo laba gabdhood labada lamaanaha ah oo caawa halkan ku aqalgalay waa soo dhaweynaynaa halka ay ku aqalgaleen waxa weeye baadiyaha Booc meel u jidha ilaa 20 kilomitir marka waa ku farxad gelinaa anagoo dhan waa ku faraxsanahay inaanu caawayto lamaanaha aanu maaragtay halkan ugu farxad gelino oo maaragtay arintooda loogu dhameeyo aad iyo aad baan anagoo ah ehelkii labadoodaba meesha tan waxa loo yimid farxad in maaragtay labada lamaanaha farxadooda la farxad geliyo dhalinyarada halkan joogtana ay u badan yihiin intooda badan kuwa u diyaar ah inay sanadaha soo socda iyo bilaha soo socda sidaas oo kale loo soo dhaweeyo marka waan soo dhaweynaynaa caawana farxadan ka soo qayb gala wixii aan maaragtay aan diintu reebin waa noo furan tahay oo maaragtay waxdi iyo hawlo iyo maaragtay heeso iyo buraanbur iyo mar haddaan muusig la socon shuuq waa noo fasax ammaanduulaha goobta wuxuu diyaarsaday sheekooyin iyo xujooyin ma rabo qofkan inuu soo istaago ilaa qofkaas wuxuu rabaa inuu process imtixaan u mariyo imtixaanka asaga kaligiisa soo diyaarsaday iyo qaabka loo marayo annaguna waa ka faa'iideysanaynaa waa ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Saciid abwaanka cawil ayaan rabnaa caawa inaan ku soo dhaweyno abwaankan oo ah abwaan runtii sanadihii u dambeeyey gobollada Puntland aroosyada ku caanbaxay gabdho badan oo adduunka dacladiisa jooga ay aad u dalbadaan in uu abwaankaasi arooskooda uu ka gabiyo wiilal badanna uu gabadha ku shukaansado uu yiraahdo haddaan isguursanno waxaan keenayaa arooskaaga abwaan cawil marka abwaan cawil waxaan rabaa in aan Axmed Cabdi Saciid ku soo dhaweeyo mikrofoonka cabaarna aan ka nasanno dadka hadda kadib loo yeerayo waxa u yeeraya ammaanduulaha goobta asaga ayaana xukumi doona
asaga ayaana xujayn doonaa axmed ku soo dhawow aroosku ka dhacaya waa waxa weeye tuulada booceed gobolka mudug degmada Jariiban ayay hoos timaada waxaa laga yimid Shabcaan waxaa laga yimid Mayle waxaa laga yimid Shabcaan iyo Mayle degmada Jariiban iyo booc oo marti gelinaysa khaasatan waxaa laga yimid dalka iyo dibadiisaba waxaa inoo jooga abwaaniin miisaan culus ku leh giiga Soomaaliyeed oo dhab looga yaqaano gaar ahaan giiga reer Puntland waxaan hadda soo dhaweynaynaa dadweynow oo la rabaa si qiimo badan inaad u soo dhaweysaan abwaanka miisaanka culus leh alla weyne waaxide abwaan Cawil aw Axmed tarbuunka ayaa laga doonayaa goob kasta aad ku sugan tahay adiga ayaa ismaqlaya abwaan Cawil inta aan tarbuunka ku dhiibin dadweynuhu waxay ka hormarsanayaan in maadaama aad meel fog laga soo qaaday oo waxa weeye laga soo galbiyo kharash kugu baxay xujo iyo su'aal dadweynaha ayaa ii diray anigu kulama damcin Cawilow waxaa la rabaa oo aan ku su'aalaynaa waa su'aal abwaanku waa ka bixi karaa waa wax iska sahlan waxaa noo sheegaysaa ninka caalimka ah oo diinta dhex galay oo yaqaan oo caalimka diinta ku fogaaday ah masana aan hal qof salaada ka bixin karin iyo ciladu qabo صعبكي مش حرده ابوانك iga qabo waa kugu celinaya way sahlan tahay waxa weey nin caalima ilaahay diintiisu yaqaana waa caalimkaasi hal qof salaada kama bixin karo cilada u diiday iyo wuxuu qabo muxuu qabaa oo caalimka mutaysto caalimkaas horta xujadu marbay ka maqan tahay oo qofku maaha inuu ka jawaabo mar kasta waana kadis marka maskaxdeeda haddaan cabiro macaalim aan noolaynba oo adduunka joogin miyaa abwaanku su'aashii waa agmaray waa ka seerowday laakiin inta xafladda la joogo dib ayuu ka garan doonaa abwaan wixii aad ku soo bismillaahi raxmaani raxiim horta anigu dabeecad baan iska leeyahay dabeecaddaan leeyahay waxay tahay qofkii aniga i xujeeya aniguna waa xujeeya qofkii i xujeeya aniguna waa xujeeya maasha allah marka si aan u kala faa'iidaysano halkan soo soo istaaga ninka la yidhaahdo magacaaga muxuu ahaa axmed cabdi siciid waxaan ku weydiinayaa adiga kalmad baan ku weydiinayaa kalmaddaasi waxay tahay waxaan kaa rabaa inaad ii sheegtid hooyada walaasheed walaalkeed wiilka ka yar seedigi muxuu kuu yahay waxaan u malaynayaa abwaan Cawil wasbareejaynaynaa macno ma leh marka aniga laftigayga siday kuu dulmadhay dee waa kadiskiiyo kala weeye marka way dulmarsan tahay laakiin waa isku furaynaa dadweynaha waxaa la rabaa in loo faa'iideeyo marka taydi baan furaya adigana taadi baa dadweynuhu kaa rabaa caalimkaasi waxa weeye ninka caalimka ah oo diinta sidaa u dhexgalay masana aan salaada bixin karinin dee nin caadi oo qunso weeye dee nin dhammaystiranba ma aha ogow la soco ilaahay diintiisa caddaysay waa kelmad diiniyana shacabka anugu hagragnina dadweyne cabdi siciid waa mahadsan tahay waxa ay weydiisanin laakiin adiga ma ogtahay hadda sheekadii bedeshay haddana wixii waxa karita khunse marka khunsahan inay naag midna loo kuma sheegin taydii baan sheegayaa waxaan ku weydiiyey hooyada walaasheed walaalkeed wiilka ka yar seedigi muxuu kuu yahay afar qofoo walaalaa hooyada habaryartaa abtigaa yar seedigii waa aabbaha marka saa weeye
sida hadda cabdinuur lahaa abwaanka gabdhaha waxa hadda lagu shukaansadaa haddii aad raacdid abwaankan keenaya arooskaaga wax kale ma ahane waa anugu maaragtaa waa u duceeyaa qofna ayaan dursha lama ogo marka reerkii aan u duceeyo insha allahu reer khayr qabu noqdaayo saasay midhaa gabdhuhu la jeedaan waxaan ka digayaa oo ka cudadaaranayaa dad islaamaynu nahay waxaan sheegayaa maahmaah waxaynu kulligeen isugu nimid inaynu qof walbaa khayr la tago marka nin baa arkay baa la yidhi aan xoolaha aqoon hal dhalaysa oo ilmuhu labadii lugood baa ka soo jeeda hashna waa dhalaysaa waa ilmaha loo yaqaan dabakeenka geela uma badna semberi waa sheeka xariiro wuu dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay war dad buu u yeera war maxaa aragtay wuxuu yidhi waxaan arkay ilmahan meesha ma gelayaa mise waa ka soo baxayaa marka waxaan ula jeedaa xafladda qofkii yimid inuu dembi siyaasadoo dembi soo doonta ma aha waa inuu khayr la tago oo uusan dembaamin dembirka saasaan ka cudadaaranaya insha allah bismillaahi raxmaan raxiim aroosyada anugu gabaygooda ma badiyo waa iska afaray in yaroo ducaa baan ugu ridaya haddii ilaahay idmo bismillaahi raxmaan raxiim yaalayeyo yaalayey hoyaalayey hoyeya hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoy sidii meel quran laga bartiyo qaafka iyo diinta ama madal rag wada qaaliyiyo qaran ku shawrayo ama godob raxmadii qabatay oo laysku kala qaaday arooskan qalooc lama dhisay quruxda loo yeel oo loo qarooriyey habsami qaali waayahayeya qorsihiyo farsamadiisa waa loo qabiiriyayeya quruxdiyo wanaaggaanu waa qole ka soo yaale gobonnimada qangaadhay baa qaabkan loo yeedhi tawxiidka loo qabayay iyo qowlka eebbahayeya qaariyul qur'aan buu akhriyey subax khamiisadii qatin laga dhig fataxada waa lagu qaboobaa waxaa qaabkan loo yidhi inuu qaali wayahayeya tifigii qarankiiyo lakin qalabyo waaweyneya bulshada qaybaheedoo dhan waa soo qadariyeene anna waxoon ku qaadqaadaya mansaqaliya daryaalahan qotomis loo dhigyay quruxna loo yeelyeya qabyay laguma raarine dhammays labada qaargaaryeya sidii qaansa roob oo kala loo qarooriyayeya qarashyada aloolkiiyo markaan qaabka kor u eego qarniganba taariikhda waa loogu qorayaa laba iyo ilaaha isku qoray way isku qaalantaane qumanay gabar habsami loo qabto qaaliya tahayeya qadirkii kuuma marwoy qaali ka dhigaye qolodiyaad ka dhalatiyo firka loo qabwan yahay gabdhaha wiilka ka qaatay baan sahan qalloocnayne qurashtoodii iyo waa la baxay qaalanjadoodiiye ayadoo aan qaangaarin baa qafka loo dhigayeya waxqaabiyo dastuur barayna waa hoya qaaliyahe qalad ma lahan oo waa miduu qaadirkay saaxaye qablan meel fog laga soo maqliyo qayla dheer ma lahe allow qoon ha ku gelin yartani qaali wata qornimada looma iyo qabadiyo jooga lafyaan la qorayeed sidii qowlka baxay moodo qalanjadii carmeed iyo lamood
qoloodii reer suure qaroorka iyo sunniyaha kanu qaniba weeyaan mandhay qaalan jalluuley wakhtigu waa ku qaabiyaye maqalloocan guurkaagu iyo qaabsan buu helaye yarkaad dadabta wada qaadateen way isku qaalantaane isku qayra bayd qurux lebaad qunu la joogtaa anna oday in badan qaatay oo qaariyaan ahaye qalbigaaga geli talagelyan ku qadimayaye mandhay qawowgay haween qanac ku yeeshaaneya qalbiga waxuuga daran ma leh hadday qaylo dheer tahay qoyskeeda lama booqdo oo qaran dhac weeyaane qaabkii eeddada iyo lahow qabowgii reerkiiyo sidii qaali yay hooyada qawjadi noqo caruusow qiyaasane aadaan qowl ku leeyahay nin qabiiladiis jeceshoho qaaliyaa tahaye alle ma qaadee waxaad ahayd qaranka soomaali qalbigayga duca jiiftay baan qoorta ku geline kugu qubatay sidii qaycurtiyo qabaabax roobaadoo ku qabowso ducadayda waa lagu qaneecaa awlaad qalbigu weheshadooneba kala qaadin qur-aankiiyo xadiisyada kuwii ku qudran oo raaco kuwa caasi waa qaab darre qodooban diidaynin qadqada oo dhala alliyo qaadir laga tuugi qaalidiyo ayuubiyo allow quba iyo jaamac qadariyo cismaan iyo allow qaasin iyo nuure iyo qalan jalluuliyo raxmiyo qali iyo raaxo qangaaro 12 qadir idinsii waxba gabayga si qorimaye waa qawimayaaye adduunyada qabow iyo nibciyo qanac ku noolaada aakhirana jannada qaymaha le qadir idingeeya marka lagu xujayn maya adige wixii aad ugu soo talagashay xaflad ayaa lagaaga baahan yahay welcome السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله عود كان كناريا أعوذ بالله عود كان كناريا عباسي وحنقرنا يا عمي وتين ما شاء الله حسن لغو عاونا يا عروس يدان عسيس كان يدين بريا يا عراد خير آمين عروسك عنك هو عدان لغا سو غرمدي وإيسي عمر باي إمام القوهيان ما شاء الله يا راد سو دقايان دلحيس كو يمد لو دبال دو سيدي دولة مدح بنان ما شاء الله لو تاغو سيدا دولة دي عراق وحامودان وروسكاغا لغو متلي sidii miiraala roob oo mirdhexe unkaday dunida maasheeyayo meelo badan ka daay wuxuu cara soo maraba ceesha mudug hantiyey munaasibadaadu duniday ka muuqataa maasha allaahu ye arooskaagu waa macquul waxaa mudan oo arooskaaga lagu matalay maraakiibaha shiqnadanoo mihey ka timid matoorada daarato mawjad sara ku xiray kambihii loo miisay mooskiina saaran yahay malqabeennada tolka ay mushaaxayaan munaasibadahani duniday ka muuqataa waxaa mudan oo
arooskani lagu matalay waxaa mudan oo arooskaga lagu matalay maalin ciid oo muslimiintii soo baxeen macallimiintii muxaadira ka jeediyeen xaafidiintii kitaabta ka marinayaan munaasibadaani duniday ka muuqataa maasha allaahu ee arooskagu waa macquul wiilku boqor weeye boqol alla waa wataa wiilku boqor weeye boqol alla waa wataa bahdiisoo dhami asaagay ku baarabaan haddii aadan baali noqon wuu ku bilaayaa wiilka boqol baa la dhalaa toobada u macaan wiilka boqol baa la dhalaa toobada u macaan wiilku waa baaniyaalo bankaa u furan barjay leedahay gabadhii la baarantaa adaa bilaney haleele bayaanu dhaqo haddaan bilaney arooskaga loo banbixin badiya birigaba haddaan looga soo baxayn banaatiiq la ridin baa huringayrihi ku imaan biyihii daarood bannaankan ka taaganahay rag badan baa gabadha doonayay hoo dalbaday rag baa baariis ka soo dhoofay barashadeed oo aabbaheed baanka nimaan baa u soo baxyiri kuwaa baabuur cadkeen oo isbarasho qabay boqol halaad iyo kuwaa barqabkoodii waday adaa calafkaagu kugu beegay baashiyo waxaan xafladiina ka diyaashay danabyadow waxaan xafladiina ka diyaashay danabyadow dalkeennii hooya deegaamadii wacnaa garaaca dooxooyinkeedii la daaqi jiray xilligu deyryahay oo dhirtaa doogi saaran yahay oo geeri daadihiyay ubaadkiina dayrdhal yahay dabaaldega faraskii loo keenay doodan yahay dalkaa wacan baan damaashaad idiinka tumin biraadu dalxiisi doontaane maanta dega mashxaradda waxa way ha socoto waxaa halkan tarbuunka laga rabaa abwaanka miisaanka culus ee nooga yimi caasimadda ee Puntland Garowe waxa weeye abwaan Xamse Shaacir tarbuunka ayaa laga rabaa reer caaway صاحبك nin culus weeye abwaan Xamse وعليك السلام adigu laba waxa turjumaysaa waxa weeye booc oo aad asalkaaga ku dhalatay ah iyo caasimadii aad ka timid marka waxa weeye laba su'aalood baa xaq u leedahay laakiin mid baan kaaga dhigaynaa waxaan ku weydiinaynaa waagi hore waa ku galtir ahaan jidhay waxaan ku weydiinaynaa neefka geela ah meesha aw bil mara bil dambana uscagaha dhigin meeshu ka dido maya sii marka mikrofoonka waa ku ceebaysnaa wallahi waa dhax fadhiyaa neef geel anu geel jira ma ahaan jirin taasaa u aabdaa horta inaan geela raaci jirin anugu waayo su-aasha xunta caatada ay weydiiyey baan ka jawaabi lahaa barnaamijka waxaan kaga qayb gelayaa horta si kadisa baa laygu dhiibay heese beddelaan ugu tuuraya dadka caaw dhan gabay baa nafta lagaga qabto sidii loogu gabeeyey laakiin laftarkaygu gabay aan soo xalay baa gadaal ka raacinaya intaa keliya idan kaga tegi maye biika heestiisa waxay ahayd qof weyn ani iima tihid erayadeeda heesta waxaa sameeyey xasan dhuxul laab saalax abwaan weyn hadda laakiin siyaasaddu ku biiray heestaasi waxay ahayd ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga dhayo quruxdaad lahayd haddaad cawo fiiqdayo weynani iima tihid waa fahmaysaan boo maleena yani meeshaas saylan baa gashay heestaasaa bedelay waxaan idhi maxaan soo gacan qabto nolosha cilmi soo wacdiyey maxaan laba cashar baro cindiga diinteen ku weyn caqliga ka waraabiyo muxibbo nolol soo curiyey ahayd ceesdhaba ahayd maxaan ceebaha nafteeda ka soo tiray meelo badan maxaan soo gacan qabto nolosha cilmi soo wacdiyey maxaan laba cashar baro cindiga diinteen ku weyn caqliga ka waraabiyo muxibbo nolol soo curiyey ahayd ceesdhaba ahayd maxaan ceebaha nafteeda ka soo tiray meelo badan ma jiro camal ruux hortii ciyaar ku taga midabko
cadkiyo quruxdaad lahayd haddaad caawo fiiqdayo ha caashuqo aad istiri qof cad ani iimatid ma jiro camal ruux hortii ciyaar ku taga midabko cadkiyo quruxdaad lahayd haddaad caawo fiiqdayo ha caashuqo aad istiri qof cad ani iimatid heestaa maxamed siciid biikey qof cad ani iimatid intaasaan kaga soo harayaa horta xagga heesa bedelka iyo anigu burqaas waxayga waa iska garaacdaa gabaygii baa cidiga gadata waay si kasta intaa yeelay abwaankaasaa karaamo ku leh allah kugu karaameeyey haddana waxaa u soo noqonayaa gabay aan soo xaday gabaygaasi wuxuu ahaa waxaa iska leh abwaanka weynaa suufo oo cali wuxuu ahaa marmar gurila aqal wada madow raar la madabeeye muska yeesha lagu soo xiriya maadha wada soohan mardimaha aloolka iyo labada gibil ku meegaaran goray miigan gogol wada marsale kabad mariin fiican oo macaws barali iyo xariir la isku wada mujay masalluhu hadduu kuu dhex yaal cilmi madanaysid madadaalo sheekiyo isagaa maase kuu tirin wuu kula mardaadiyahayaa mayrac galabeed maraq geel wiilkii soo cabbaa miirma caatada miraha bay saqdhexo waa ku mirayaaye maxabiga kalgacalka iyo jacayl waa isku kii marin isagaa maqsuud kaaga dhigay suma maadane xagga gabaygana intaas waa soo xaday xoogahan aan ku dardarsaday qaad iyo bilaayo ila geli lahaa moogtahay iyo aniga kaaga waa farsamaystaa jeega anaa kala baxay su'aal baa ku weydiinaya caata ha ka jawaabi waayen horta romantic maahay soo dhow ha carre romantic maahay inaan kaaga jawaabaan ducadee hal su'aal baa ku weydiinaya naasa habloodna heraadaan soo dambeediyo soo dhow bal ku celi haye naasa hablood ma horaadaan mise waa dambeedyo dayaal waa ka maqashaa naasa hablood aankayga kama leexdo waa horaado naasa waxa weeye xujadii la weydiiyey ayuu ku dhacay kana aarsan waa maca salaam xamse waxaa tarbuunka laga rabaa hodan daliya dibad meesha ay joogto hodan baa loo baahan yahay hodan jaamac hodan oo degmada ka socotay degmada Jariiban ayay ka timid degmadii bay ka timid wax badan bay noo wadaa soo dhawow hodan soo dhawow degmada ayay ka timid su'aashana looma soo sheegin laakiin wixii aad ku soo tala gashay degmada aad ka keentay tarbuunka ayaa laga rabaa welcome waray waxaan salaamayaa caruusada halka ku aqalgalay caawa marka xigana wixii aan ku soo tala galay insha Allah bisi waxa lagu bilaabay nin baraka male birweeyaan oo islaamku badbaadiya ee waanu baranay allow baaska naga xijaab wiilka iyo gabadhu wayno gudbo yihiin laba gobood aan kala gaabin bay yihiin laba shabeelo aan kala shiiqin bay yihiin sharafta cabdi ciise oo sheegan bay yihiin warxaawadeeleyda daahanka rogaaya diiwaanay dabacna baan danaynayaa dhiigga diran iyo ficil baan dareemayaa oo maanse diritaysan goobtaan ka tirinayaa caruusyada inaan bogaad shanaygu ballanaa xaawa simanay waxaan kaga xiray durbaan jariiban oo labada dacal doogu saaran yahay jariiban oo labada dacal doogu saaran yahay digtoonay hooyo iyo doorkii abbahaa ilma adeer dacadana ku diyaarsan tahay oo dubcastii cabdi kulli ka danaynayaan damaashaad kaaga dayaxa la geynayaa oo kaamira aydii dul joogto la duubayaa oo waa la daawaday sidaa dawlad kala tihiin aboowa simano waxaan buugga kugu qoray 100 fardood oo aan weligood busaarad arag
bannaankii gaalkacaya iyo daaqi jiray bannaan isimadii bilicda dheeraa ku bixi jireen way ku badartami jireen ciidamada puntland boqolka roonow gaalkacayay ka soo baxeen bannaankii garacad baa daaqsin loo baraaxay bannaankii garacad baa daaqsin loo baraaxay halkan waxaa laga doonayaa Mixiyadiin Axmed Maxamed goobta ku sugan yahay asaga ayaa isgaranaya abwaanka culus miisaanka culus ee ay ku dhaartaan nin reer Shabcaan baa ku dhaarta abwaan adiga waxa weeye maadaama aad waxa weeye abwaankii reer Shabcaan tahay annaga oo qadarinayna ayaan su'aashu waa khafiif su'aal khafiif ayaa lagu weydiinayaa su'aashu waxa weeye adiga waxay ku leedahay waxaad noo sheegtaa ninka ceelka walwaal wadaan hoos ka daloosho ku waraabshay geela yay walaalayihiin waa wax khafiif adiga waa lagu khafiifiyey cidda ay walaalaha yihiin noo sheeg sacabka macnaha waxaan u malaynayaa middaas mid aan garanaya ma ahan qofku hadduuse waxaa garanaya inuu yidhahdo waa garanayaa ma ay ahan anu taa marka haatan garanmaya ma garad adigana haatan ku xojaynmayo waxay kaloo la ii diri lahaa la ii diro abwaankii reer Shabcaan oo su'aashii loo khafiifiyey masana ku guda dhacay buu kaasi ahaa sacabkii mashxaradda madasha arooska wixii aad ugu soo tala gashay abwaan baa laga sugayaa tarbuunka ku duubo oo yaalayey hooye allah hooyo alayey hooyalayey hooye indhaweyd ba hawraarta gabay waanigaan holinuu hamigayga waataan ka jaray inaan hikaadsaaye aan habeeyo caawo kalaan haadu maryaayoo hiddayee salaameed bal aan horay oo sii qaatoy caruusyada habboon waa kuwaan lana halmaamaynoo inta heeladkan joogtay haykalka u taagan inta haatan maqan oo ayaga u hambalyaynaysa waa yeelka soo wada hitiqay oo horumar doonaya hambalyiya salaam baan u diray hagarlaamide afartaa hubeeyeye mawaan kala habowsiiyey oo hawraarta maansada anigu hoga dhexmawdiidoo afar kalana waydiin hayaa haatan daabadeede labadaa hibaysane aroos lagu hannaansiiyoo dhallinyaradu heer maansadiyo heesu tirinayso anna hadafka kaygaa ducaan oga hadlayaayee kuwii aan habsaamine adduun horumarkii gaara aakhirana hoygii jannada lagu hannaansiiyo hodamow allahayow ka yeel waan ku haybsaday oo afartaa hubeeyeye mawaan kala habowsiiyey oo hawraarta maansada anigu hoga dhexmawdiido ma hawadiyey waayaha kan waa igu higagnaayo afar kalana waydiin hayaa haatan daabadeede waa wiil allah hodamahe hibadu saarayd oo diinta heer waan cilmiga lagu hannaansiiyey oon meel la hiifiyo lahayn hilib kharaartoon oo wax dhan buu hiyiga guur ku xidhay inuu habeeyaayo dumarkama halwaayina wakhtiga haatan ku ekaayo yartii uu hamayn yeel la shiro hadal la yeeshaaba inay meelka hididiishabu kaga habsaamaayo caawuu yartuu haybin jiray oo caawuu yartuu haybin jiray hoy la jibsaday hiboyina adeereeyadaan kula hadlayaayee yarkaan adeeryeed faliid hanadse weeyaanoo waa kaa horweyn kaa baxshiyo heetisyo cawlo waa kaa hantidii uu lahaa maanta kaa horayoo siduuna hanwen yahay haddaad ugu hufnaan weydoo xisuu hamayn buu dhacaa hagaritaalaayee hannaankiisa gaaro guurku yuu heedadaw noqoone afartaa hubeeyeye mawaan kala habowsiiyey oo hawraarta maansada anigu hoga dhexmawdiido ma hawadiyey waayaha kan waa igu higagnaayo afar kalana waydiin hayaa haatan daabadeede waa gabar allah hodamahe hibadu saaraydoo waa inan hillaac lagu matelo hobasha dayreede ama laan hareeriyo baxdee habuna liishaanto guryahoodana reer lagu hirteey hab ugu noolaydoo halyay caana baa dhalay misana hooya qaaliyahoo nasiibkaaga baad ku heshay
hana walaalowo sidayuna hanweyntahay haddaad ugu hufnaan weydo wixisuu hamayn buu dhacaa hagar itaallaaye hannaankeeda garo guurkuyuu heedadaw noqoni afartaa hubeeyaya mugaan kala habow siiyayo hawraarta maansada anigu hoga dhacmow diido ma hawadiyey waayaha kan waa igu higagnaayo afar kalana waydiin hayaa haatan daabadeede hodamkiinna uumow adaan ku addoonnahayo ibaryaadna tiri annawaan idin ajiibaayo islaam soo hidqeeyaan iyo uumiyaad badanoo 4 saaca laylkaa mugdigan ee bawleennahaye aqbaloo ajiib caawaye erayadeennaanoo waraamiinsadhaha ee waqaanala ajiibaye aqalkaynu joognana rabbow aayatiin wacanoo midkii udubkii raagoon rabbiyow kala agoontoomin mid islaamku soo haybiyo laguna ongooyo ehelkiiyo qaraabadu miday aad u maadshaani allahayow ka yeel ee midkii abidkii qaryaale ammaantiinna lama koobi karo sidaan arkaynaaye iljinniyo midii aadaniyo erayga kii kuunii uurnimcaada xaasida wuxuu lana afbuuraayo idamkaaga ee bow ku qabo ku erganaaye ubax weeye awlaaduyey aayatiin badane axmed iyo ayuub iyo kuwii idin adeecaya ilyaas iyo saaw maxamed iyo aadan iyo faysal murti kuma idlayn karo intuu uurku tabayaayo sidii ubaxa geedaha kuwii yee arladan saanta kuwa edab akhlaaq iyo saa sharaf eebba ugu deeqay ayadaasa diinta kuwii kuna ammaanaado awlaad siciid iyo rabbow ubadba kii khayrre allaha idin siiyooy kuwii idin adeecaaye السلام عليكم يا يدها قرآن أولي بسم الله يا يدها قرآن البخران السيو الكافانين نخريي التحيات كان الباب كينا يذين كديي ما شاء الله الله وغل كينا كيلو يركضي كيال دم الهروينو بيودي غليينيان دم الهروينو بيودي غليينيان رود البودا يشين برود البيويان وبحيا كلام إذا بكي مهاكم مريهين نفتو أمانا يسا كي مهار في المعام جعل كداده يهد بدا بعلون الدين كدنا شدا شودا يدين كون دالر dalxiisna waada goorta toddoba baxda marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ii sheeg caruuskii caruusada milxiiska ii sheeg meeshaan caawa goobta aroosku ka dhacaya xafladda qurux baa lagu qabtay waxaan leeyahay ilaahay caruur khayr qabto ii sheeg oo ah kuwa dhaanin iyo farxad nolosha inaan ku wadaagtaynin baa ilaahay ugu ducaynayaa ashaala kuwii ilaahay isku waara oo caruur khayr qabto kala hela oo isku gawo ilaahay ka dhigo baan leeyahay insha Allah markii xigto waxaan salaamayaa bulshaweynta qurux badan labadii dhidig baa leeyahay aad iyo aad baan salaamayaa boqortooyada shaashan markii xigto waxaan ku soo dhaweynayaa hees qaraami maadaama anu ay sheeg asku gashay ina hees macnaha daahay hayalka xaafadda iska ahay ma sha Allah may jacayl waa tahay hadaan ii sheeg markii xigtana waxaan jeclaan lahaa iyadoo hadii dhibta wax kasta waatee حتى قبرها عمرت هيك تعال عن قاع وصيو عمرت متش عمل حدوت وانقلها ما شاء الله هذا وقاضي يا ساق قال دقيس وعن لكن عبس مية دري إنه كرني مية وباهن لكن بغض انت حاول لكن ماشي لقي ميوي مركب جود كل الضبا تمها قدفتا لو حرو marka guudka loo dabo timaha gadafta loo xiro jirsada ku qaangaar gayaankoodu soo baxo jirsada ku qaangaar gayaankoodu soo baxo ee geedka loo tago wada hadasho gurtidu gacan qaadku u dhaco laga keeno geeyada ee geedka loo tago wada hadasho gurtidu gacan qaadku u dhaco laga keeno geeyada gibladiyo ciyaartii la gingimo aroos
kibladiyo ciyaaraha la gengimo aroos waa gaari nolol wacan lagu soo gardaadshe gobsana gabdhahayagu waa gaari nolol wacan lagu soo gardaadshe gobsana hablahayagu gobsana hablahayagu gobsana hablahayagu gobsana hablah aad iyo aad u mahadsantiin idinkuna maasha allah laba gabdho isu istaagay